السلام عليكم والد أولاد وإنان برو وحليرا self image psychology أو سيدا إيوغا يسو أركان perception كا إسكا قبان أركتيدا إسكا قبان أيو آدمه كطبخي وحانو لجيدا حداد إسقورساتو آدمه وكو قورسان حداد كورسو قادنا آدمه وكو احترامي قد يدا وحليرا self image psychology إن الدائرتو يسويديان قبلهن إيوليشن يسويديان how do you see yourself سيد سو أركتا أديكو قبل مركي مرايدة سو احتجاب كا أركتو أي سكول كا وصعتو ما قرانيسا عدة تاي ويلكو مركو خميس كا حدو مساجد كا وصعتو عدة وياهي ما قرانيا مسو قوريغا وا محمد سكول كان وا مو او قبل قوريغا وا خديجة سكول كان وا فوكسي ماما براون أما وحلا ميدا قرآنكو وحينا بريا قضية المركة نبي موسى والنبي دي لهي صدري عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا وحو ربا قوم كيسي برشديسي إنو برو وحلي لهذا self image psychology in ay soo arkaan inay yihiin dad sare oo ka soo jeeda nebiyo oo ka soo jeeda hogaamiyayaal identitygooda xusuusinaya markaas wuxuu leeyahay gala dhulka barakaysan ilaahay idinku idii qoray oo la wareega وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وحو حسوسين يا عدة أيهين عرور نبيو أي دلين hogaamiyaal ka soo jeeda rag talin jiray ka soo jeeda war dadkaasaa tihiin that is your identity shakhsiyadiina wata xaggaasaad salka ku haysaan orda oo horu socod noqda dib ha u soo bixina qabsada dhulkan meesha marka la taagan yahay ayuu wuxuu ku yiri yaa qawm idkhulu al-ardh al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum orda oo gala dhulkan u fiirsa dadkan kow nabi muuse wuxuu xusuusiyay cidda ahaayeen identity inay saa isu arkaan nebiyaan ka soo jeednaa hogaamiyaal baan ka soo jeednaa sidaa darteed la wareega dhulkan ilaahay wuxuu idin baray marka qadiyadan self image psychology haddaad isquursato aadamuhu ku quursan dadkan oo og inuu nebi yahay waxa uu u sheegayana xaq uu yahay baa waxay dhaheen qaaluu yaa muusa ina fiiha qowman jabbaariin nebi muuse ma gelayno meesha ma geli karno kuma dhacno waayo rag aan loo geli karin baa ku jira dad xoog badan baa ku jira u fiirso war nebi inuu yahay arkeen fircawn oo ilaahay baddi ku halaagay arkeen dadkan waxay arkeen nebi muuse iyaga oo ilaahay hayweeye oo badda uga jeexay manna iyo salwa iyo quraanka wixii mucjizaadina loogu sheegay wada arkeen waa maxay waxa dib u dhigay ay leeyihiin anagu ma geli karno dadkani waxa weeyaan dad naga awood badan waxay isu arkeen dadaan waxba qabsan karin identitygooday iloobeen sidaa darteed waxba ma qabsan karaan dadkani maxaa ahaayeen maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay dib u bax marka waxaa lagu sameeyey bullying wax la yiraahdo fircoon baa ku sameeyey oo ilaahay wuxuu yiri intuu duleystay ayaa wax walba markuu ku yiraahdo way sameeyeen ilaahay baa quraanka ku yiri fastakhafa qawmuhu faata'u dad wuxuu ahaa nabi dad wuxuu ahaa fircoon uu qursaday wax walba sameeyay haduu yiraahdo way sameeyeen marka wax miisaana ma lahayn hal beeg ma lahayn dad waxay ahaayeen intuu kala qaybiyay uu gumeystay muxuu markuu ilaahay quraanka ku leeyahay waja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ayadi ahayd uu kala qaybiyay awoodoodii buu kala dhantaalay markaas uu gumeysan jiray bullinkaas ayaa wali maskaxdooda ku jira traumahaas ayaa ku jira inkastoo ay arkaan nabi muuse inuu nabi ilaahay soo diray yahay way qabsan kari waayeen sababtaa waxa weeyaan waxay soo arkeen dad liita waxay soo arkeen in laga awood badan yahay waxay soo arkeen waxba inaan qabsan karin isagoo nabi muuse identitygooda uu xusuusiyay walaalayaal wadamadan aan ku noolahay haddaad u fiirsatay bulshada madowga ah wiilka dhalinyarada ah ee madowga ah wiilashayada Soomaaliduna wayba ku taafureen wuxuu u haystaa waxa u wanaagsan uu noqon kara inuu yahay basketball player sidaa darteed maanturan basketballkaas uu saa u wadanaya waxaa laga dhaadhiciyay wiilka madow in waxa kaliya uu noqon kara uu yahay maxay basketball qof ciyaara wuxuusan ogeyn dhaqaatiirta madowga ah ee Mareykanka joogta ka badan dadka madowga ee kubadda ciyaara gabdhaha iyaga waxay la noolyihiin adduun lagu qasbay inay iscaateeyaan adduun lagu qasbay adduunkan maskaxdaada lama dhiil garaynayo ee jirkaagu la dhiil garaynaya sidaa darteed jirkaaga wanaaji si bulshada aad uga mid noqoto sida lagu accept gareeyo waa low self esteem qofku markuu isquursanay weeye gabadha muslimadda waxaa laga yaabaa sanka duleesho bishimaha waaweyne mararka qaarkood waan ka xumaynaa luqadda ku hadlo laakiin barkimo xagga dambe gasho si image-ka ay u gado gabdhaheen oo dhan ma xaasha lillah qaybo ka mid aan tilmaamaya wiilasheena sidoo kale waxa uu inuu ku fikiraya inuu noqdo murqa inuu yeesho inuu ma aragtay qaab la yaqaan u labistay wax la mid ah
kama hadlayo jimicsiga iyo faa'iidadu leeyahay murqaha, laakiin waxaan ka hadlayaa adduunkan ka dhaadhiciyey jidhkaaga lagugu qiimaynaya. qofku marka wuxuu isu arkaa qof aan waxba qabsan karin, wuxuu isu arkaa qof adduunka qaabka ay dadka u socdaan haddaanan u socon, oon saa u labisan, oon saa u hadal, oon saa kuu salaamin, oon sidaa u labisan, waxba kama noqon karo. qadiyadda qur-aanku waa ceebeeyey. waxaa loo baahan yahay marka shakhsiyadda qofka muslimka ah in la dhiso, oon jirka lagu mashquulin. jirka caafimaadkiisa waa muhiim, laakiin adduunka inaa ku tiraa deal with my brain, maskaxdeeda la tacaamul. jirkan waxba kaama gelin. xijaabku wuxuu leeyahay jirkan adiga waxba kaama gelin, ma lihid adigu, maskaxdeeda igula dhiilgare. gabadha muslimkaa saasay leedahay. allaha awlaadeena suga. janaalkan waxaa la yidhaha waalid legacy, adaa lagugu talagalay waalid. fadlan subscribe dhisaad muuqaaladan u hesho, sheerna dhe walaalaha muslimiinta la sheer gare, kommentiyadana hoos noogu dhaaf. wasalaamu calaykum waraxmatullah.